xilli maalmihii ugu dambeysay ay soo baxayeen dhaliilo loo jeedinayo madaxweynaha Hirshabelle taasi oo ku aadan degmooyin cusub oo la magacaabay ayaa waxa ay banaanbaxyo ka dhaceen deegaanka Beergadiid ee gobolka Hiiraan sida warbixinta umuurtaasi ku aadan uu magaalada Beledweyne naga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cumar Nadaara banaanbaxan lagaga soo horjeeday dowlad goboleedka Hirshabelle iyo magacaabista degmooyin cusub ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaanka Beergadiid ee gobolka Hiiraan isu soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqay erayo ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble dadka dhigayay banaanbaxa ayaa sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ay kala noqdeen kalsoonidooda waxaana ay sidoo kale sheegeen in deegaanka uu qalmo degmo isla markaasina aanan loo magacaabin marka waxa uu sheegaynaa Cali Cabdullaahi Cosoble inuu degmadan xaqrin inuu degmadan degmo buuxday tahay inuu soo magacaabo degmo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaan ku saabsantaa kaliya cabashadeenu maamulka waxaan ku hadlayaa magaca ganacsatada marka hore waxaan ka cabanaynaa Hirshabelle haddawna tixgelin waayo anaguna waa qaadacna ilaahay oo gobolada leh oo degmooyinka leh oo carada ka jira la qabsanayna waxa la qabsan karaan la qabsanayna oo baaxad loo markii hore ka tirsanay waxa hoos timaaday 79 tuulo 53 tuulo oo kamid ah hoos timaaday Beergadiid 23 tuulo 25 tuulona way hoos timaadaan bariga Matabaan wariyaasha wanaagsan oo wacan oo la soo gaaray oo la danaynayo cabashadeenu ay dhigtay oo saakay safarka dheer loo soo galay intaas ka bacdi hadaan ku gudbo saakay waxa naloo gudbiyay in anaga isbaara noo mataalo naftayni maalkayna ku xoraynay isbaaradii tilay ilaa Beledweyne ilaa galbeedka Matabaan anaga ku xoraynay culumma u diinka dhalinyarada ururka haweenka intaas ku xoraynay wax maal oo cid kale ay nasiisay ma jirto annagoo jidka saas u nadiif oo ka soo horjeedna isbaaro in saaka culmo u diinka beel dhaqameedyada odayaasha gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada lagu garaafeeyo boqolkiiba boqol aadaan ugu xun Hirshabelle abdeysaan waa Hirshabelle Cali Cosoble aadoo weyn uu noo xaqiray waxa waaye in xuquuqdayna waxaan lahaynay nidaamkayna dhan waa xaqiriyay waxa isleeyna maamulka dawladda federaalka Soomaaliya meel walba saa idin joogo waxaa marka ilaa federaalka waxaan ku codsanaynaa waxaan ku ceebaynaa wali ku cambaaraynaa annaka hadaan naloo magacaabin degmo waxaan annaka kalsooni u haynaa inaysan jirin oo waxa la waxaan u haynaa dawladda hadda lagu dhawaaqa ama maamulada wax ka tabanayna waa la idin sheegay waxa uga baaqaynaa caalamka ama wixii darayna in annaka nahay Beergadiid hadaan nahay degmo u baahannahay isbuucyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaliilo loo jeedinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble kadib markii uu ku dhawaaqay degmooyin cusub isla markaasina uu booqasho ku gaaray magaalada Farlibaax uu madaxweynaha u magacaabay degmo cusub Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Cabdiqaadir Nadaara RTN TV